بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين شعبك مدحضة dhalinyarada reer koonfur galbeed intii iskoyti salaamta islaamka ka salaamantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan maqanaay safar shaqay ku maqanaay geeka kooy ilaahay hay aruuri nabada kooy mahadsantiin walasiin ku mahadnagay soo dhaweyntum diiran oo mas'uuliyadda iyo walaaltinimada iyo dal jacaylka iyo dawlad jacaylka ka jara yasinka mahadnagee eed yang mahadsantiin shacab iyo dawladba dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan. intaas ku dib runtii ilaahay aa mahadleh geeka iniskaana sheeni wali runtii foolxumo ahaa oo intii aan maqanaay lamaadungey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la ka jaayifaysaday dawladnimadii wallinku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii yahaan eed yaan ka xuma waana wal ceeb caqabadna ka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka oo hata la fadow la hirgeliyo hana qaada caqabadka dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagi oo arag soo yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadalay xaqaan leeyin waana wala in sheegayna dawladda iyo dadkii qusayti yaa kula hadleen dadkii bakool ku hadalay in aragtidii runta la kiyaabay oo la fool xumay oo la ka wadani mahidi shahaadada wadaniga dadka qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyada wala dhalade hoobo Soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadku reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhamaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yasin laqabna waana siin garaawaana waana siin garab taagan insha Allah taala. intaas kadib wali mahadnagay xildhibaanadii federaalka koonfur galbeed matalaay oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la ka handadi la ka xumaay la ka ceebay eedan mahadsiin xildhibaano koonfur galbeed mataliyu horna mataleen lan kale xildhibaano Soomaalinimada madal ku taboona dad reer koonfur galbeedu wali matalaayna shacabka iyo hadaleen iyoona taageeran iyoona mahadsiin taariikhda qoraasa oo baad dheegi jirtay tumiisidiida SYL unugeeka wali SYL niyaha 25 xildhibaan reer koonfur galbeed hansurunti koonfur galbeed hansurunti dadkii shacabka ay taageertay wadaniyadii beentaha ay taylis ku xuuxiyay diidi yaa hambalyeeyana waleelna koonfur galbeed garabkiinu mahadsantiin waajibkiina gudateen xasaanada isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsiyo xasaanad qabiil kala siin ku qaadi karo ma midnimo iyo Soomaalinimo yaa iskala roog hoob la diidoona wal shaltabeel lan walba lan beel ka dhalana ma la beelisan. intaas kadib wali ha ka gabagabeeyay dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tashi amnisho inta ladaan mustaqbal shoobka taladaan horumar shoobka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lan kasta oo walgarada culimo iyo caamo iyo siyaasi iyo
shacabo wali fadaan guul ilaahay idin sheey koonfur galbeed iska taladaana amnigaano ka taladaana amnigaano inta ladaana mustaqbalkaanago inta ladaana midnimadaano inta ladaana meeluhu jeedno inta ladaana eedan ma hasantiin hadawaayo fayle insha Allah sheekaysan doono eedan ma hasantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh